بركات رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي شرفت لي وحورين سيديتين مي في حنتين حالدين كسورة ما نويدي مناكسن هاي رمضان مبارك رمضان مناكسن ما أنت وحوي رمضان أفر بين وطهاي بختكو أردايا رمضان وأرديسا إلى أنا قد يكوي كفايدي رمضان تا ما أنت وحربا عشيرو كالكعسن وما شاء الله وقال إسك أرقه ومعان إنا حافظة إن شاء الله أو سميو markaalka waxaan kusoo diyaarsaday alaabtii aan cashada ka sameysan lahaay oo dhan alaabtan oo dhan baa isticmaali doonaa insha allah. Cashadan maanta sameynayna waa baasto, waa chicken, waa rooti la dhaho garlic bread iyo vegetable amba khudrad aan roasted waxa la dhahaan ku sameyn doono. soo dhawaada. Ugu horeyn madeebad baa soo qaatay xawaashi iyo milix iyo saliid baan kusoo shubtay. waxa way alaabta madeebada kusoo shubtay baan waxaan rabaa in digaaga halkan ii yaalo aan marmariyo. digaagan waa laba jeex, waa digaag oo bilaa laf ah oo jir kaliyaata ah boneless weeyaan. laba qof baan marka laba jeex kaliya sameysanaynaa. madeebada waxay ugu jiro waxa waaye wax yar oo basbaas cas ah, wax yar oo xawaash isku jiro oo mindi spices la dhaho, wax yar oo oregano ah, wax yar oo saliid ah, wax yar oo waxay ugu jirta hereeri tuman iyo milix. waxaan sameynayaa xawaashidii milixda saliidda wax dhan baasaa ujeedaan suuq qasaya, kadibna digaagan marmarinayaa, kadibna digaaga waxaan gelinayaa talaagada si uu waxa waaye xawaashidan ay digaaga lafta ay uga soo galaan. intuu xawaashku intuu digaaga uu talaagada ku sii jiro waxa waaye cuntada inta kale aan iska sii sameysanaynaa. waa kaas chickenkii waan marmariyay xawaashidii bacba afka kaga soo xiray, talaagadan gelinaynaa cabaar buu iskaga jiri doonaa talaagada insha allah. haddana waxaan rabaa inaan sameysto suugadii oo aan baastada aan ku dari lahaa oo aan baastada ku dalici lahaa. waxaan sameeyay sidaan dab soo saartay, basal baa soo googoostay, basashiin sida ku soo riday, kadibna wax yar oo saliidaan ku soo daray, basashii saliidiyaan isku soo shiilay. markii wax yar isku soo shiilmeen oo basashii dahabi noqotay saa ujeedaanba waxaan ku soo darsaday waa tamaandho oo aan diirkii ka soo qaado bilaa diir ah iyo toon iyo kabsar aan isku soo tumay. wax yar baan isku walaaqayaa, kadibna waan daboolayaa. waxaan sugayaa intay tamaandhada ay kasoo jilcayso oo ay kasoo huurayso. tamaandhadii markii ii soo huurtay malqaacad ayaan soo qaatay. tamaandhadii waxa waaye aan saa ujeedaan aan u wada burburiyay. ana ma jecli tamaandhada inay cuntada ka dhex muuqato. waa kaasa suugadii wax biyaa kuma darin weli. tamaandhadii markaan wada burburiyay kadib hadda waxaan kusoo darsanayaa xawaashaashii iyo milixdii. hadda waxaan kusoo darsaday wax yar oo milix ah amba cusba, wax yar oo xawaashi isku jiro mindi spices la dhaho, wax yar oo filfil ah, wax yar oo sinjibiil ah. intaas xawaash ahaan ugu daray. kadibna hadda waxaan kusoo darsanayaa wax yar oo tamaandho qasaac ah amba kurkur ah amba tamaandhada diyaarsan boxida ku jirta ah. kadibna inta dhan waan isku walaaqayaa, waan daboolayaa wax yar si intaan isugu soo yara shiilanto dhowr daqiiqadood. waa kana soostiisa ujeedaan dhowr daqiiqadood baa isku soo shiilay. ana cuntada waxaan iska jeclahay inaan kolba shiilo amarka ilaahay. intaan markay isku soo shiilantay waxaan sameynayaa hadda biyaan afka u gelinayaa. waxaa ujeedaan biyaan ku darayaa, kadibna waan yar walwalaaqayaa, waan daboolayaa, dabkana mid hoose uga dhigayaa. kadib ilaa 20 daqiiqo bay iska soo karkari doontaa insha allah. waa kaas 20 daqiiqo kadib aan soos ku soo laaban doonaa markii soo karkarto ay soo bislaato. haddana waxaan rabaa garlic bread waxa la dhahaa inaan sameysto. marka madeebada waxaan kusoo shubtay waxa waaye batarka korkiisa waxaan kusoo daadiyay wax yar oo milix ah. agtiisana waxaa yaala kabsar iyo toon aan isku soo tumay, basbaas hereeri tuman iyo wax yar oo maxaa la dhahay xawaashka la dhaho mindi spices ah. qorigana waxay kor yaala waxa waaye 2 xabo roodhiya. roodhida saa ujeedaan aan usoo jarjaray. roodhidana waa idin tusay fiidiyowga bilowgiisa aan kusoo tusay roodhida isticmaalaya noocay u eg tahay. hadda waxaan sameynayaa batarkii iyo xawaashiyaashii iyo kabsartii iyo toontii wixii oo dhan baa saa ujeedaan aan isugu wada qasqasay
kadibna waxa waaye batarkii alaabta isku qasay oo dhan baa roodhida qaybta sare aan ka marinayaa. Afka sare un baan ka marinayaa, afka hoose ma laga marinayo, hal dhinac keliya laga marinayaa. Saa ujeedaa roodhidii oo dhan aan usoo wada marmariyey. Hadda roodhidii waxaan kusoo shubay mashiinka air fryerka la dhaho. Air fryerka marka hore saliid yar aan soo mariyey, kadib roodhidii aan soo wada dul saaray saa ujeedaanba. Kadibna mashiinkaan gelinayaa. Haddaa air fryer haysanin waxaa gashan kartaa oven. Ani air fryerkaan jeclahay sababtoo waqti yar wax dhan igu bislaynaya. Air fryerka waxaan ku daynayaa 4 daqiiqadood iyo 165 Celsius. Waa kana saa ujeedaan roodhidii saanay usoo shiilantay, saanay usoo dubantay. Waxay noqotay shaaxid ayada dhan qarjajamay leedahay. Marka horena roodhi yar oo jilicsan bay ahayd. Roodhidii diyaar bay ii tahay. Waxaa waaye waan ka gurayaa air fryerkii. Halkaana saa ujeedaa waxaan kusoo diyaarsaday waxaa waaye khudradana waxaan rabaa in ayadana insha Allah aan soo dubo. Khudradda halka igu jirta waxay ka kooban tahay, halka waxaa yaala waa baradho. Marka hore waxaan isla sweet potato isticmaal, laakiin waan iska dhaafay baradhada caadiga halkan kusoo diyaarsaday. Halkaana waxaa igu jira geedka la dhaho broccoli, xooga yar oo broccoli ah. Halkaana waxaa yaala 2 nooc oo barbarooniyaal ah, nooca huruudda ah iyo nooca casaanka ah. Halkaana waxaa yaala carrot. Halkaana waxaa igu jira geedka la dhaho French beans. Khudradda intan isticmaal doonaa, waan baking gareyn doonaa amba waan dubi doonaa. Hadda waxaan sameeyay digsigaan dabka soo saartay, biyaan kusoo shubay, carrot-kii iyo baradhadii iyo French beans-kii aan kusoo riday, wax yar oo milix aan kusoo daray. Khudradda intana waxaa waaye dhowr daqiiqadood aan dabka kusoo karkariyaa, biyo yar aan kusoo karkariyaa. Haddii aanan soo karkarinin oo ayagoo sidoodana air fryerka geliyo, air fryerka way qalajinaysaa, ayaga dhanba naftii ku dhajinaysaa. Yacni ma taagnaanayso, khudrad taagan ma noqonayso, khudrad qalashay oo miiqay noqonaysaa. Sidaa darteed dhowr daqiiqadood 3-4 daqiiqadood aan dabka ku kariyaa 3 khudradood oo keliyaata. Marka ii soo karkareen waan ka dhigay dabkii. Waxaan sameeyay khudradda qaybtan soo karkariyay, madeebad baan ku riday, qaybtii kalena madeebadan baan kusoo riday. Waxaan sameynayaa mid walba xawaashidii baan ku darayaa, xawaashi isku mid aan ku darayaa, laakiin tan soo karkariyay milix baan kusoo karkariyay. Sidaa darteed 2 madeebadood ugu kala dhigay, tan kalena milix baan ku darayaa. Xawaashiyaan kusoo daray, basbaasyaan kusoo daray, waxaan kusoo daray saliid, waxii oo dhan aan kusoo darsaday adii aan haystay oo bahaaraad ahaa. Kadibna mid walba saasaa goonideeda ugu dhex gelinayaa xawaashidii iyo saliidii wixii aan kusoo daray oo dhan. Waa kaas saasaan wixii dhan isku soo wada dhex geliyay. Kadibna air fryerkii aan kusoo shubay khudradii oo dhan gabigeedii hal mar baan kusoo wada shubtay. Khudradda air fryerkan ku duban doonaa. Haddaa air fryer haysan oven baa ku samaysan kartaa. Air fryerkii ovenku wuxuu bay ku kala duwan yihiin. Air fryerku degdeg buu wax dhan kugu samaynayaa. Khudraddu waxay air fryerka ku jiri doontaa 8 daqiiqadood. Digriigana waxaa uga dhigayaa 160. Waa kana khudraddii way soo shiilantay, way soo dubantay. Saan ayay diyaar ku noqotay. Innaba caadi maahan. Mashiinkan air fryerka la dhaho waxaa waaye janno weeyaan. Qofkii haysto un baa garanaayo. Hawl fudeed wax walba waxaa waaye 5 daqiiqo kuugu samaynayaa. Hadda khudraddii saan ay bisayl ugu tahay, madeebad ayaan ku guranayaa. Cabaar kadib hadda ayaan suugadii kusoo laabtay. Muddo ayay hadda dabka saarnay, suugadana way karkarisay. Hadda waxaan sameynayaa suugaday. Waxyaabaha kale aan ku daraayo u dhiman baa hadda ku darsan doonaa insha Allah. Marka ugu hore waxaan ku darayaa waa basbaas, malqacad basbaas aan kusoo darsaday. Basbaaska in cuntada markay ii bislaan doonto baan ku daraa. Waxaa kaloo hadda kusoo darsaday waxaa waaye spinach amba koosto xooga spinach ah. Waxaan kaloo kusoo darsanayaa kalluunka qasacada ku jira amba kalluun oomaar oo macala saliidiisii wata. Kadibna intaan si fiican isugu walaaqayaa. Dabku dhexdhexaad iska ahaan doonaa. 5 daqiiqo ay haddana intaan dib isugu huurineynaa insha Allah. Haddana chickenkii aan rabaa inaan dubo, talaagadu ku jiraan kasoo bixiyay. Kadibna mashiinka air fryerkan soo dul dhigtay. Mashiinka inta chickenka soo dul dhigin ka hor saliid yar iska soo mariyay. Chickenkii soo dul dhigay. Waxaan gelin doonaa air fryerka 8 daqiiqo ugu programina.
8 daqiiqo markay dhamaato chickenka dhinaca kale u rogaya haddana 8 kale u geynaya. So 16 daqiiqo kusoo bislaanaya waa inuu markuu soo bislaado kadib. Finally suugadiisana ay diyaar iyo badh ku noqotay. Maasha Allah waa suugo yar oo fudud oo inaba caadi ahayn oo waqti badan ka qaadanaynin oo macaankana aad diyaabisid. Maanta low energy ah xilliga aan video cod ka saarayo waa xilli aan daalay intaan soo shaqeeyo oo shaqo ka soo baxay oo madaxii xanuunayo oo aan dhan maanta dhan afur sameynayay. Waxa waaye aan dhan tabcaana ah isoo ugu qaata maanta codkeyga cod tabcaana waaye. Soo suugadii dabkii aan ka damiyay kadibna waxaan sameeyay baastadii suugadii baasta u jirtana isugu walaaqay aan iskugu rogay yani baastada lacaanba baasta isku rogay soo baxday. Soo kaas hadii baastadiina saasay diyaar ugu tahay. Soo halka waxay ugu jirtaa baastadii waan soo dalacnay. Bilaarkan waxaan ku soo shubtay waxa waaye khudradii aan soo roasted gareynay. Bilaarkan kale waxay ugu jira waa roodhidii aan soo marinay toonta iyo xawaashadii adduunka. Meeshaan waxay dul yaalo waxa waaye digaagii aan soo shiilnay oo saas ku soo baxay. Bilaarkan waa ka rabinta cashada ku diyaariyay in ay idin tusiyo. Soo waa kana bilaarkii dhinac waxaan ka soo saaray baastadii, dhinac digaagii, dhinac khudradii, dhinacna waxaan ka soo saaray waxa waaye roodhidii. Soo saana u soo diyaarsaday cashada caawa. Qof walba saanu bilaarkiisu u ekaan doonaa. Soo waa kaas waa casho aad iyo aad u qurux badan inaba caadi ahayn macaan VIP ah. Saa u jeedana waxa waaye baastada digaaga khudradda roodhida mid walba noocaas uu eegyahay. So I hope ina videogan idin qancin doono amba wuxuunad ka faa'iidi doontaan. Videoga hataa ka heshaan like ka iloobina asxaabtiina nala sii share gareeya. Haddaad doonaysaan inaan waxyaabo aan rabadaanta idin soo geliyo oo idea ah commentiga igu soo qoro waa idin soo sameeyna oo idin soo gelina insha Allah. So videoga intaan ku eeg yahay waxaan idin leeyahay maca salaama.